Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaasha qiimaha badan waa mar kale iyo muuqaal cusub kusoo dhawaada maanta waxaan idiin haynaa sheeko ka mid ah sheekooyinkaan idiin soo gudbin jirnay waa sheeko naxdin leh oo cinwaankeedu uu yahay cajalad video ah ayaa burburisay noloshayda ee daawasho wacan. maalin maalmaha ka mid ah anigoo kasoo baxaya albaabka jaamacadda ayaa waxaan arkay wiil dhalinyaro ah oo aada u qurux badan oo isoo fiirinaya sida qof i yaqaan. dheg jalaq uma siin oo waan iska socday anigoo cabsi igu jirta. wuu isoo dabagalay isagoo igula hadlaya hadallo aan wanaagsanayn sida caruurta oo kale, sidii isagoo igu lahaa qurux badan waan ku jeclahay inaan ku guursado ayaan rabaa, muddo badan ayaan ku raadinayay. markii aan maqlay akhlaaqdaada iyo wanaagga ay dadka kugu sheegayaan waan orday anigoo iska dhigatiraya waxa uu igu akhrinayo, waayo weligay ima soo marin arrintaas oo kale. guriga ayaan tegay anigoo daalan oo la yaaban arrintan. habeenkii oo dhan ma seexan, waxay igu noqotay yaab iyo makaag. maalintii dambe markaan kasoo baxay jaamacadda ayaan kula kulmay haddana iridka isagoo isugaya ii dhoola caddeynaya. sidii si leeg ayaan uga cararay. dhowr jeer ayuu sidaas oo kale soo weeraray oo aan ka cararayay ilaa aan ka caadi yeeshay arrintaas. sidaas ayay ku socotay maalin kastaba, isagoo soo jaraya masaafo ilaa uu markii dambe iisoo dhigay waraaq albaabka guriga. aad ayaan ugu shakiyey qaadisteeda, hase yeeshee waan qaaday aniga oo ay gacanta i gariirayso. markaan furay aan akhriyey waxaan ku qornaa hadallo xambaarsan jacayl iyo isaga oo ka cudur daaranaya wixii dhib ah ee uu ii geystay intii uu i daba taagnaa. warqaddii ayaan jeexjeexay oo aan tuuray. wax yar kadib ayaa waxaa soo dhacay telefoon, mise waa isagii. wuxuu weydiiyey inaan akhriyo waraaqda iyo in kale. haddii aad edeb yeelan weydo waxaan u sheegayaa waalidkay, waadna ogaan doontaa wixii kugu dhaco ayaan ugu xagajugleeyey. wax yar kadib ayuu kusoo celiyey telefoonkii wuxuuna bilaabay inuu isu kay sharaxo. wuxuu ii sheegay inuusan xumaan ila dooneynin ee uu rabo inuu i guursado. wuxuu iga dhaadhiciyey inuu yahay nin hantiile ah. wuxuu ballan ku qaaday inuu dhisi doono daarta ugu weyn magaalada oo aan aniga ahay amiiradda keli ee degi doonta, iyo inuu isiin doono wax alla wixii aan u baahdo ee adduunye ah. wuxuu intaas ku daray inuu yahay qofka kale ee ka haray reerkooda ee nool maanta, oo aysan jirin cid ku haysata hantidaas faraha badan ee uu haysto, oo waxaa ka maqan ay tahay xaas wanaagsan oo edeb leh sideeda oo kale. saacad dheer kadib waan u qalbi jilcay, waxaana bilaabay inaan ka dhageysto sheekada. markuu soo diro telefoonada waxaan is arkay anigoo ka sugaya telefoon maalin kasta, oo haddii uu soo diri waayo murugooda, iyo inaan sugo markaan kasoo baxa jaamacadda bal inaan arko ninka ii ballan qaaday mustaqbalka rajada wanaagsan. maalin anigoo kasoo baxay jaamacadda ayaan kula kulmay albaabka isagoo taagan. markaas ayaan kala badbatay farxad. waxaan bilaabay inaan gaarigiisa la fuulo oo aan kusoo wareegno magaalada anagoo sheekaysanayna. markaan la joogaa waxaan noqday sidii qof aan lahayn ikhtiyaar. sida uu ii hantay aageed awood uma lahayn inaan isweydiiyo sababtaan ula socdo. waxaad moodaa inuu iga siibay wadnaha. waxaan bilaabay inaan rumaysto dhammaan hadalladiisa, gaar ahaan marka uu igu yiraahdo waxaad tahay xaaskayga mustaqbalka dhow. daarweyn ayaan ku taagayaa, dunida oo dhan baan ku dabaal siinayaa, dadna waa adi oo keli. maalin maalmaha ka mid ah ayuu burburiyey nolosheedii sidii u dhammeyd, wuxuuna igu ceebeeyey ummadda horteeda. sidii caadada ahayd ayaan isla baxnay oo aan is raacnay. wuxuu i geeyey guri aada loo qurxiyey oo si fiican loo goglay. waana isgarab fariisanay annagoo is eegayna. waxaan hilmaamay xadiiskii nebiga sala allahu calayhi wasalam ee uu noogu digay inay nin iyo naag ajnabi kale ah meel cidla ah wada fadhiistaan. waxaan bilownay inaan eegaya oo uu isaguna i eegayo ilaa aan is arkay anigoo hoos jiifa. waxaan arkay anigoo gacan ku haynin wixii aan lahaa, wixii ugu qaalisanaa. waxaan soo kacay sidii anigoo waalan. markaas ayaan ku yidhi, maxaad igu samaysay? ha xabsan, waxaad tahay xaaskayga. sidaan xaaskaada ku noqday adigoon i mehersan ayaan ku calaacalay. waan ku mehersan doonaa mar dhow, ayuu iigu laabqaboojiyey. guriga ayaan aaday anigoo murugaysan, lugaha qaadila oo oynaya. waxaa igu shidmay dab jirka oo dhan. gabalkii ayaa igu madoobaaday. waxaan bilaabay inaan habeen iyo maalin ooyo.
waxaan ka tegay waxbarashadii. Xaaladeydii ayaa sii xumaatay. Qoyskanagii ayaa igu weeraray iyagoo la yaaban waxay ku dhacay. Waxaanse isku samarsiiyey arrintii uu ii ballan qaaday ee guurka ahayd inuu fulin doono. Waqtiga ayaa dheeraaday iyadoo habeenka iyo maalinta ay iga culus tahay buuraha. Talo maxaa ku xigi doona? Waatana balaayo kale oo ka daran tii hore. Telefoon ayaa soo dhacay. Waa isagii oo aad moodo codkiisii inuu ka soo hadlayo meel fog. Waxaan rabaa inaan kulanno oo aan ka wada hadalno arrin muhiim ah, ayuu igu yiri. Aad ayaan u farxay anigoo u haysta inuu doonayo inuu nikaax sameynayo iyo aroos weliba. Waxaan u tagay isagoo aad moodo shaydaan, wuxuuna igu yiri, waxaan kugu bishaaraynayaa inaadan iga sugin wax guur ah weligaa. Waxaan rabaa inaan ku wada noolaano sidaas. Dharbaaxo ayaan kaga soo qaaday ay indhuhu la soo dhici gaareen. Waxaana u sheegay inuu yahay nin akhlaaq laawe ah oo mustaqbal doonaynin. Waana ka tegay anigoo oonaya. Wax yar isug, ayuu igu yiri. Waxaa gacanta iigu jira cajalad fiideo ah. Wuxuuna igu yiri si jees ah, taas ayaan ku burburinayaa noloshaada. Maxaa ku duuban? Ayaan weydiiyey. Kaale oo arag waxa ku duuban. Waxay kugu noqon doontaa layaab, ayuu igu yiri. Waan raacay si aan u soo arko waxa ku duuban cajaladda. Waxaan ku arkay dhammaan faaxisho ahaa eena dhex maray markii aan guriga joognay. Maxaad samaysay yaa daalim? Kaamera ayaa guriga geliyey oo duubtay. Cajaladdan ayaan kugu haystaa oo aan kugu burburinayaa haddii aad diidid waxa aan rabo. Qaylo iyo oohin hor leh ayaan isku daray, waayo ceebtu waxay u gudubtay qoyskayga. Runtii waxay ku dhammaatay inaan ninkii u noqdo la hayste oo sida uu doono ii maamusho habeen iyo maalin. Si fiican ayaan u dabaashay. Waxaan ka wareegay noloshii sharafta lahayd. Waxaana ku wareegay dumarka nooca liita. Qoyskaygana war uma hayaan wax dhacaya. Cajaladii ayaa faaftay. Waxay gacanta u gashay in adeerkay. Arrintii ayaa laba qaraxday. Waxaa ka war helay waalidkay iyo dhammaan reerkayagii oo dhan. Waxay usii gudubtay ceebtii oo ay qaadatay dhammaan magaaladii oo dhan. Gurigayagii waxaa hareeyay ceeb. Waan dhuuntay si aan u badbaadiyo naftayda. Waxaa sidoo kale magaaladii ka cararay dhammaan qoyskayagii oo dhan. Hase yeeshee ceebtiina kama harin ee waa la guurtay. Waxay noqotay arrintii mid looga sheekaysta majaalista. Cajaladii ayaa sii fiday oo gacanta u gashay dhalinyarada magaalada. Waxaan ku biiray dumarka jirkooda ka ganacsado anigoo murugaysan. Ninkan wuxuu hore u soo baleeyay gabdho kale oo sideeda oo kale ka duufsaday iskuulka ama jaamacadaha. Waxaan go'aansaday inaan ka argoosto oo aan ku sameeyo mid ka xun tii uu igu dhigay. Maalin ayuu i soo galay isagoo aad u cabsan. Waxaan u degdegay inaan ka faa'iidaysto jaaniskan. Waxaan caloosha ka geliyay toorey. Halkaas ayaan ku dilay insaan shaydaankii. Waxaan kaga raaxeeyey dadkii uu dhibi lahaa gadaashayda. Halkaas waxaa inoogu eg sheekadii naxdinta lahayd ee la magac baxday cajalad fiideo ah ayaa burburisay noloshayda. Intaan ku kulmi doono sheeko noocan oo kale ah, intaasoo nabadgelyo. Asalaamu calaykum waraxmatullahi.